Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo qiso ku timi beryahan sheekadii Safiya Tusma iyo Cabdi Cajuun oo iska dhammaatay baa dib u soo noqotay oo Cabdi Cajuun uu bilaabay heeso uu Safiya Tusma ku dhaga hadlayo inuu soo qaado marka reactionka laga sameeyey oo ummadda oo dhan ay micneeyeen heesihii waxay noqdeen heeso dhaga ku hadal ah heesahaas oo ay la qaadayeen laba gabdhood mid waxaa la qaadayay gabadha la yiraahdo Nimco Dareen midna gabar kale ayaa la qaadaysay sidaa uma aqaano fanaaniinta yaryar gabar kaloo fanaanad yaroo cusub ayaa la qaadaysay marka heesahaas oo runtii markii loo fiirfiirsado ama la micneeyo u eg inay durayaan Safiya Tusmo waxa weeye waxaa maanta ila soo xiriiray gabar Jabuutiyaan ah ayaa ila soo xiriirtay maanta oo waxay igula soo hadashay bareefadkayga meesha aan kula xiriiray waa bareefadka maxaan ku rahdaa sheeg facebookayga ayay igala soo xiriirtay waxay ii soo qortay qiso aada u dheer runtii markii dambe waxaanu u wada hadalnay face to face ayaanu u hadalnay waxay ii sheegtay marka ay si fiican iiga dhacday qiso ka dhacday magaalada Sanca ee dalka Yemen gabadhan reer Jabuutiga waxay ku nooleed Sanca Yemen waxay ii sheegtay inay saaxiibo la ahayd gabar kasoo jeeda goboladan Puntland la yiraahdo gobolka Bari magaalada Qardho ayay igu tiri bay kasoo jeeday waxay tiri saaxiibaanu ahayn waanu wada deganayn dad isfahmaanu ahayn waxaanu noqonay dad walaalo oo kale waxaanu ka shaqaynaynay tiri hotel Sheraton hotel la yiraahdo ayaanu waxay tiri nadiifin jirnay oo xaaq jirnay oo gogli jirnay halkaasan ka shaqaysan jirnay oo Yemen ku yaala bay igu tiri dabcan aniga sidaa Yemen hadda uma sii kala aqaano marka waxa weeye waxaa runtii gabadha sheekada ila wadaagtay waxay tiri gabadhaas ayaa waxay tiri wiil Jabuutiyaan ah uu jeclaaday oo dhalinyaro ah oo ka yar gabadhuna waxay ahayd hooyo laba caruura leh oo carmal ah ama garoob ah waxay tiri wiilkii yaraa ayaa wuxuu ugu wareeriyay gabadhii wuxuu ugu yiri waa qiso qosol meeran ah wuxuu ugu yiri bay tiri ibar gabadha ibar walaalay gabadha ibar walaalay gabadha ibar walaalay gabadha ibar huna inanta waadi bari maaha huna inanta waadi bari maaha saasay u hadlaan Jabuutiyaanke wiilku waxay tiri wiil wuxuu ahaa reer Jabuuti isla ahayn oo de isku beelna aan ka soo jeedna bay tiri gabadhii baa adigu wiilka u sheego waxay tiri naaheedha wiil baa ku raba walaalay wiil baa igu kaa wareeriyay oo reer Jabuuti aanu isla nahay walaalay wiilka aan ku baro bes markaas waxay tiri waaye wiilkii baan baray bay tiri gabadhii wiilkii waxay tiri cabaar bay wada sheekaysteen markaan baray waa isaga tegay bay tiri waxay tiri waa soo noqday gabadhii oo boodsan baa u imi bay tiri waxay ugu tiri araheede luuqad reer bariga araheede maaliyaad buryo qabtay baraysa naaga kaxay buryo qabta markaasaan yaaba bay tiri waa maxay waxaad aad ku hadlaysa waa maxay buryo qabta aad sheegaysa hara anigu buryo qabta rag ma moodo baaye buryo qabta iga daa baay buryo qabta iga daa
markaasaan yaaba bay tiri waxaan dhahay tiri naadee hadalka ii sheego maxaad ka wadaa burya qabta naama waxa kan gabankaa bay tiri ara waa wax gabana ara waa caruur ara burya qabta ma guursada anigu ara burya qabta risaaqad kama raadsho waan yaaba bay tiri markaasaan hadalkii bay tiri fahmay oo ma ka dhacay bay tiri hadalkii oo dhan waxaan iray tiri aalo walaalo de waa nin ku dhaqan kar waa nin weyne waa maxay burya qabtaa sheegaysid waaba inan yaroo maxaan ku rahdaa wanaagsanoo dee anaan kaa aqaano nin waan kaa hubay maay bay soo istaagtay naa aniga burya qabta hay keeni baayay gacaray haddii aanu saaxiibanna aan kala xishoonno yaab waa bigu xanaaqda bay tiri markaasaan tiri war isdeji war maxaa dhac baayay burya qab dambe hay keeni wuxuu waa burya qab guursan maayo anigu nin iga yar iyo burya qab iyo waxa intaa la eg guursan maayo oo beritoole aniga maxaan ku rahaa iyo oran maayo naagtu waa iga weynta adduunka waxaan ka dhintaa nin iga yar oo igu yiraahdo beri naagtu waa iga weynta iyo naagtu waa habar ara mid iga weyn baan rabaa ma haysaa mid iga weyn iyo kan balaan kaa diido baayay hay keenin burya qabta hay soo dhaweyn burya qabta risaaqad kama doono waligay allah burya qab ma hunguriyeen nin majuur ah oo wanaagsan oo maxaan ku irahdaa akhyaar ah oo ii qalma ii kan waxay tiri gabadhii aniga qab madaxaan isla gal naade inanka yar baa ku wanaagsane naa maxaad ku falaysaa oday kaa weyn naamay bay tiri inanka yar muxuu ii sheegayaa beri soo i oran maayo islaanta weyn iyo way iga weyn tahay iyo iyadoo caruuro oleh baan guursaday iyo maxaan ku irahdaa waa habar weyn iyo yaa intaas baaban ka dhimanayaayay tiri ara hay keenin burya qabta hay keenin hay soo dhaweyn burya qabta baaya ma guursado risaaqad kama doono burya qabta ima qalmo waabay ka faantay bay tiri oo maxaan ku irahdaaba gabigiisiba waxay tiri ay ka ashtay way ka faantay ay tiri may ma doonayo mana isoo maro mana arki karo mana maqli karay tiri hay keenin burya qab wasal waxay igu daran bay tiri ereyga u bixisay burya qabta wallahi gabadha markay iga sheekeynayso aniga xataa waan suuxay sidaan u qoslaayay wow waa fuuran kule waa fuure waxaa iri so funny gabadhaas bismillah maasha allah laakiin waa gabar maasha allah caqli badan waa run ninka haddaad gug ka weyn tahay wuxuu leeyahay way iga weyn tahay waaba dabeecad ay leeyihiin raggu way iga weyn tahay iyo waa habar iyo iyadoo carmalaan guursaday iyo iyadoo caruuro wadataan guursaday iyo maxaan ku marba hadduusan isaguna caruur wadan uusan isaguna ahayn carmal ama isagu uusan ahayn garoob yaa hadduusan ahayn wuxuu ku oranayaa waxaan guursaday naag iga weyn oo caruuro wadata oo caruuro leh baan guursaday marka waa runteed waa wax la diido gabadhaas waa ku raacay runtii gabdhaha oo dhanna waxaan uga digayaa wallaahi gabadhaas soo waa gabar runtii fekeraysa oo meel dheer ka fekeraysa runtii maybe inay waxyaabo badanna usoo joogtay gabadhaas iyadii hadda ma aanu wada hadal laakiin waxaanu wada hadalay gabadhan kale ee reer Jabuutiyaanka ee qisada dhabta ah la socotay ee saaxiibka la ahayd gabadha oo wiilka iyadu badhay gabadha saaxiibadeed ah marka runtii waxaan gabar kasta uga digayaa ninka ay guursanayso waa inuu isku ayni waa inay yihiin isku age waa inay yihiin waa inay isku gedo yihiin wey haddii kale waa siday sheegtay gabadhaas reer bariga reer qardhoodka ahayd hadduu sanadkaa weenya wuxuu leeyahay habar baan guursaday islaam bay ahayd way iga weynayd haddaad hal sano ka weynta xataa way iga weynayd buu ku leeyahay
caruuray wadatay haa buu ku leeyahay marka waxaa fiican gabadhu inay guursato qof u qalma nin akhyaar ah wax fahmaya la jaan qaadi kara waxaa la yidhi shimbir walba shimbirkiisu la duulaaye nin la jaan qaadi kara oo fahmi kara oo caruurteeda fahmi kara oo iyada fahmi kara yaa nin majuur ah nin weyn ah dhaqan kara maxaan ku idhaahdaa ay isku gedo yihiin oo maxaan ku idhaahdaa ay isla jaan qaadi karaan ayaa u fiican gabadha weyn ee runtii khuburada ah waxaa u fiican nin isagana khuburo ah ayaa u fiican uma fiicna nin hadeer nolosha soo bilaabaya oo wiil yar ah oo ka yar oo caruur aan soo dhalin oo horey aan naag u soo arkin oo aan khuburo ahayn oo aan reer soo dhaqan uma fiicna waan idiin sheegay shimbir walba shimbirkiisu la saan qaadaa marka shimbir walba shimbirkiisu la duulaa waa in kaas waxa anfacaysa runtii gabar yar oo isaga la eg oo ay nolosha isla bilaabaan oo isfahmayaan oo iyadana aan waxba ka dambayn isagana ilaa waxba kama dambeeyaan ay markaas ay reer abuuraan ay reer wada dhisaan ay caruur labadoodu isu dhalaan ayaa wanaagsan marka gabadha kale waxaa ku wanaagsan nin runtii khuburo ah wax soo arkay maxaan ku rahdaa iisheeg fahmaya xaas hore soo lahaa nolol hore soo samaystay maxaan ku irahdaa ay isku age yihiin ama maxaan ku rahdaa isagaba inuu ka weynaado ay maxaan ku rahdaa habboon tahayba xataa ma dhahayo wax sirqa oo gaboobay hala guursado laakiin waxaa fiican nin kuu gada dhow inaad guursatid ama laba kaa weyn ama kula eg ayaa fiican oo ku fahmaya oo caruurtaada fahmaya oo caruurtaada aabbo u noqon kara laakiin nin yar oo caruurtaada hadhow isdagaalaan oo maxaan ku idhaahdaa rabsho iyo hadhag iyo madax xanuun iyo dhibaato iyo maxaan ku idhaahdaa ijiid aan ku jiide iyo caruurtaan baan nacay iyo hadhowti intuu haddana maxaan ku idhahdaa ilmo kaleoo cusub kugu rara kaaga taga iyo culays iyo dhib kale kuu keena waa laga wanaagsan yahay aniga gabadhaas reer bariga reer qardhoodka waa ku raacsanahay waan ku raacsanahay waana u bogay wallaahi qisadan markay iiga sheekayso waxaan iri so good qiso aada u wanaagsan weeye waana fiican tahay inaan usii gudbiyo gabdhaha kale ee soomaaliyeed ee carmalka ah ee wiilasha yaryar raba inay guursadaan oo raba inay intay dalkii tagaan wiilal ka yaryar guursadaan waxaa weeye gabadhaas tusaale ha ka dhigtaan gabadhaas diiday ninka ka yar ee tiri ima soo maro buriiqabta ma buriiqabta ma guursado anigu ara buriiqabtayga kaxay ara buriiqabta nin ma moodo anigu ara xaala waxay tahay waxay ii wada buriiqab bay keenta ama caawad buriiqab ii keentay saan u qoslay gabadh markay ka sheekaynayso waad suuxaysan haddaad maqli lahaydeen markaan soo xasuusto waa qoslaa wallaahi billah so nice history waa qiso runtii fiican oo qurux badan oona u noqon karta gabdhaha runtii waxay u noqon kartaa waano iyo tusaale iyo waxay u noqon kartaa wax ay ku waantoobaan oo u noqoto wallaahi bilaahi wax dhaxal gala waan salaamayaa qisadaas qosolka badan ayaan idinla wadaagayay gabadhii ii soo gudbisayna waan salaamayaa waxaan leeyahay thank you so much waxaan jeclahay in aad qisooyin kalena bal ii soo gudbiso aan sii gudbiyo waa loo baahan yahay qisooyinkan oo kale runtii dad badanna way ka faa'iideysan doonaan insha allah biidmillaahi kariim waxay u noqon doontaa advice
iyo waano iyo waxay ka tusaale qaataan waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu